وتهداوديال goobjoog TV ayaa naga daawanaysan markana dadka shacabka ay ku dhaqan wadanka Finland ee Soomaalida ah ayaa waxa ay halkaas ku xuseen 60 guuradii ka soo wareegtay waqtigii Soomaaliya ee xornimada qaadatay ee kowda Luulyo magaalada Turku ee wadanka Finland Soomaalida ku dhaqan ayaa halkaas waxa ay ku sameeyeen munaasabad ay ku soo dhaweynayaan kowda Luulyo meel kala duwan oo Soomaaliya ah iyo dalka dibadiisa ayaa laga xusay maalinta xorriyadda Soomaaliya ee kowda July magaalada Turku ee dalka Finland ayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool waxa ay ka dhigeen munaasabado lagu weyneynayay xuska kowda Luulyo waxaana ka soo qayb galay dhalinyarada haweenka aqoon-yahanada iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee dalka Finland ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay Maxamed Khaliif iyo Cabdullaahi Cadcaadi Rooble oo ahaa qabanqaabiyaasha munaasabada lagu qabtay magaalada Turku ee dalka Finland waxayna si wada jir ah ugu mahadceliyeen dadka ka soo qayb galay waxaan u hambalyeeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanad guuradii 60